بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaanu diyaarin doonaa ama nu eegi doonaa cover letter si loo diyaariyo ama application letter midka aad u taqaanidba. waxaanu samayn doonaa cover letterkan ayaanu samayn doonaa oo codsi shaqadan ayaan codsi shaqo u diyaarinaynaa. saas buu u ekaan doonaa. hadaba la soco qaybta dambe si aad samaysid iyo qaabka loo samaynayo si aad u aragtid. Okay, hadaba si aan u qorno cover letterkeena waxaanu tagaynaa browserka kadib waxaanu ku qoraynaa website-ka la yiraahdo city. halkan markuu inooga soo baxo waxaan ka dooraynaa cover letter kadib create markaan idhaahno waxay noo soo baxayaa sample-kii kadib create. halkan waxaa inoo sheegayaa waxaan marayno 3 istabood oo inooga baahan yahay inaan marno inaan muuqaalka hore siduu ekaan doono doorano kadib aan ka jawaabno su'aalaha inuu weydiinayo waxaan shaqadan codsanayna noocay tahay xirfadda aynu leenahay ayuu inuu weydiinayaa kadib waxay noo soo baxayaa cover letterkan samaynay waana review garin karnaa dib baanu fiirin karnaa. Okay, create. hadaba labo su'aalood buu haddana ku weydiinayaa oo ah inaad mid cusub bilowdid iyo inaad mid hore wax ka bedeshid. create mid cusub anana kaas markaan doorano continuous baan haddana sii odhanaynaa. waa kan hadaba su'aalihii ayuu inoo bilaabay. wax shaqood codsanaysid oo iyaga maskaxda ku jirta haabaan odhanaynaa. shaqadan apply garayno noocay tahay ayaan dooraynaa. waa graphic designer. shirkadana waxaynu ku qoraynaa ila baro IT. 3 shay oo nu ku fiicannahay ayaanu dooraynaa: team management, organization iyo decision making. haddana waxaan dooraynaa 3 shay 3 skill oo la xiriira graphic design-ka. kaasi noogu dar logo creation iyo adaptive suite. Okay, number of experience-ga inta sano aan soo shaqaynay iyo sheegnaa last jobkii ugu dambeeyay waxaanu ka soo shaqaynay baan odhanaynaa video editing. gaab ma jirin baan odhanaynaa. wax gaaba ma jirin ayaan odhanaynaa oo waxba ma dhaxaynin shaqadii hore iyo iminka. Okay, kuwana mid ayaan ka dooraynaa qaabkaan jecelnahay inaan u shaqayno oo mid kasta ay kala duwan yihiin. continuous waan diyaarinay. haddaba noocaan doonaynaa ama kalarkaan doonaynaa inuu kusoo baxo ayuu halkan hoose kaas buu noo taagan yahay. Okay, kaabaanu ku daysanaynaa. waa kan haddaba muuqaalka aan interface-kii aanu samaynay. halkaa markaanu joogno haddaba 2 option baan haysanaa oo kala ah inaan download ayaanu odhan karnaa. wuxuu inoo sheegayaa inay meelo bannaan subject-ga iyo greeting-kii inay labadaasi midhan yihiin. skip baan iska odhanaynaa labadaa marka dambe aan ku qaadan doonaa. halkan waxaa kuu soo baxaya haddaba qaybtii payment-ga ayaa kuu soo baxaya oo ku leeyahay si aad ula degto iibso ay ku leeyihiin faylkan. si aad ula degto waad samayn kartaa inaad continuous tirahdid oo payment details-ka tagtid kadib aad saa kula degtid. haddii kale waxaad samayn kartaa qaybtan si aad kula degto. haddaba option-ka labaad wuxuu yahay inaanu ku samaysano Microsoft Word oo inagu dib u diyaarino inagoo isticmaalaynaa information-kan inagoo isticmaalaynaa inaan dib u qorno oo ku diyaarsano computerkeena iyo Microsoft Word. waxaynu la soo baxaynaa file maran oo Microsoft Word ah. halkan baanu ka bilaabaynaa information-kiina magacii Axmed kadib san baanu ekaysiinaynaa inagoo ka raacayna muuqaalka kan. qaabkan ayaanu u ekaysiin doonaa oo magacii address-kii iyo email-kii kadib space u banayno date-kii aan ku xusno kadib shirkadii aan u dirsanaynay magaceedii. halka waxaanu ku sheegaynaa shaqadii aan codsanaynay. haddana waxaan ku qoraynaa cidii aan u diraynay. waa intaasi ayuu title-ka sar ka kooban yahay. marka intaasi ayaanu qoraynaa shaqayar Hargeysa Somaliland. email-kii abdi@gmail.com. waxaan kusii xijisiinaynay date-kii waa 10 bishii 6 kadib shirkadii aan u diraynay kadib shaqadii baan ku xijisiinaynaa kadib waxaanu ku xijisiinaynaa cidii aan u diraynay. Okay, intaan oo dhan waxay nooga dhigtaa 12 kan 14 nooga dhig boolna nooga dhig. Okay, intaa waanu samaynay.
kadib waxaynu soo qaadanaynaa saddexdan article oo inoo qoray ayaan korba mid soo qaadanaynaa kadib halkan baas inoogu soo dheh articlekii labaad soo qaad labadii article ee dambe buu iska soo daray halka inoogu kala go kadib waxaan ku qoraynaa integer greetingka intana inoo koobiye labadana inoo koobiye formatkan baan hadda kadib hagaajinaynaa okay inta haddaan doono waxaan dhigi karnaa dhinacan kan dhinacan inoo gee kolba adoo meeshii kula qurux badan eed istiraatid adoo eeganaya templatesyada halkan ku jira noocyadiisa kala duwan adoo kolba mid ka eeganaya waxaad dhiganaysaa dhinacii ku cajabiya ama leftiga iyo right-ka midkay kuu noqoto labadaba kolba midkaa doortid ayaad dhiganaysaa saas ayaa loo sameeyaa safety aad labadaba ku save garaysan kartid pdf iyo save as magaca intaan ugu daadha as a pdf save kadib waa kan saawa inoogu soo baxay cover letterkii ama application letterkii sidaas ayaanu ku diyaarinay intaaba inoogu eg tahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu